Maxaa caddeynayo in qofkaaga ku inkiraayo ama inuu mashquul yahay? Mararka qaarkood rag runtii way adag tahay in la fahmo. Waqti badan ayay kugu qaadataa ka fikirka isaga, laakiin xitaa ma hubtid inuu ka fikirayo adiga. Nasiib wanaag waxaa jira hab lagu ogaado mashquul inuu yahay ama inuu si ula kac ah ku inkirayo adiga. Marka laga hadlayo isbeddelka ragga, cilmi nafsi ahaan ayaan ku ogaan karnaa xaqiiqada. Waxaan si weyn u baranay isbeddelka xiriirka iyo cilmi nafsiga ragga. Si aad u ogaato inuu ku indhitirayo ama mashquul inuu yahay, waa inaad eegtaa dabeecadihiisa guud iyo isdhexgalkaaga. Gabdho badani waxay dareemaan xanuun marka nin iska indhitiro ama u maleeyo inuusan danaynayn. Laakiin dhab ahaantii waxaa jira sababo kale oo badan oo laga yaabo inuusan kuu soo jawaabi karin, oo ay ugu horeydo mashquul gaar ah. Tusaale ahaan, wuu iska indhitiri karaa haddii uusan ku jeclayn adiga, mana dareemayo inuu diyaar u yahay inuu xiriir kula yeesho adiga. Laga yaabee in qofkan mashquul kale haysto oo aan awoodin inuu kuu soo jawaab celiyo. Shantan arrimood aan u gudagalno waxay sharaxaad weyn kaa siinayaan sida lagu kala saari doono. Aan bilowno saaxiibayaal. Number 1, faham hababka qoraalka ee caadiga ah. Talaabada ugu horeysa waa in la helo fikrad ah in sida uu caadi ahaan wax u qoro. Qof walba wuu ka duwan yahay midka kale. Qaarkood weligood lama arko online-kooda, mana ku mashquulaan taleefanadooda, halka qaar kalena had iyo jeer lagu arko online. Si aad u fahanto caadooyinkiisa qoraalka ee caadiga ah, dib uga fikir inta uusan joojin jawaabta. Waa inaad isweydiisaa su'aalahan. 1. Intee la'eg ayuu si caadi ah kuugu soo jawaabi jiray? Number 2. Waqti intee la'eg ayaad raggu inta badan isku qortaan midba midka kale? Number 3. Maxaad inta badan ka hadashaan? Number 4. Intee jeer ayaa lagu arkaa online-ka? Number 5. Reply-giisa ilaa intay qaadan kartaa? Number 6. La barbardhig kuwa kale ee aad la sheekaysato inta ay jawaabta kugu soo celiyaan. Hadda aad fikrad ka haysato caadooyinkiisa qoraalka ee caadiga ah, isbarbardhig waxa uu hadda sameynayo. Markasta oo uu ka duwan yahay sida uu hadda u dhaqmayo, waxay u badan tahay inuu si ula kac ah isaga indhitirayo. Number 2. Ka fikir xiriirkaaga isaga kala dhexeeya sida uu muuqdo. Haddii aad si dhab ah ula hasaaweysay, waxay noqon doontaa mid aad looga shakiyo haddii uusan muddo dheer ku soo jawaabin qoraaladaada. Dhanka kale, haddii uu yahay mid aan ku wanaagsanayn xiriirka oo aadan adiga u dhoweyn, waa iska caadi inuusan isla markiiba dib kuugu soo jawaabin. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr xeeladood oo fudud oo aad u adeegsan karto si aad ugu soo celiso inuu qoraalka kuu soo jawaabo adiga. Dib baan uga hadli doonaa. Number 3. Haddii nin kula ciyaarayo ciyaarta iska indhitiridda, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida dib loogu ciyaaro debka. Dhowr maalmood kadib oo aan waxba jawaab ah la helin, u soo dir qoraallo gaaban oo fudud si aad u weydiiso waxa uu ku sugan yahay ama waxa uu ku jiro markaas. Waxaa jira 2 xeeladood oo suurtagal ah. Haddii uu mashquulsan yahay, wuxuu caadi ahaan kuu soo diri doonaa qoraal dheer oo uu kula soo xiriirayo. Waxaa laga yaabaa inuu kaa raaligeliyo maqnaanshaha qoraalkaaga oo uu dib kuugu soo jawaab celin waayay. Waxa macquul ah inuu dib hadal u bilaabo. Si kastaba ha noqotee, haddii uu si ula kac ah ku neceb yahay, waxaa laga yaabaa inuu ku soo jawaabo qoraal gaaban ama uu mar kale iska indhitiro. Number 4. Markasta miyuu sidaan yahay mise waqtiyada qaar? Qofku wuu mashquuli karaa waana ka maqnaan karaa saacado ama xitaa maalmo. Laakiin macquul ma tahay qofku inuu maqnaado maalmo haddana online-kiisuna yahay mid aad u badan? Inaga waqtiyada caadiga ah ee aan mashquulno, waxaan xirnaa oo joojinaa dhammaan wax waliba oo social media ku saabsan, taasoo aan u aragno inay tahay aamin. Waayo qofku kaama fikiri doono oo ma oran doono waa online haddana ilama hadlaayo. Inaan offline nahay ayaa waxayba tahay jawaab cad. Number 5. Si aad u sii xaqiijiso, ku casuum ninkii aad og tahay inuu ka heli doono. Tusaale, qofkaaga hadduu jecel yahay ciyaaraha, soo u dir linki ciyaaro ah. Muhiim maahan inaad adigu xiisayso ciyaaraha,
waxaad ogaan kartaa qofkan inuu mashquul yahay, sidoo kale ku mashquulsan yahay ciyaaraha, ama inuu si kasta isaga indhatiraayo. noocyada nimankan kuma jecla qofka aad tahay, waxay mar walba raadinayaan inay wax kaa helaan. haddii aad og tahay inuu yahay ciyaartoy isticmaala ciyaaraha, waad ogaan kartaa inuu ku mashquulsan yahay. si u samee martiqaad linki ah oo ku martiqaad dhacdo soo jiidasho leh. tani xitaa uma baahna inay noqoto wax dhab ah, keliya waxaad u adeegsanaysaa si aad u tijaabiso sida uu ugu soo jawaab celin karo, si aad ula bilowdo wada hadal. waa waddada keliya aad uga dhigan karto qofkan inuu kula hadlo. tusaale, qofka hadduu yahay qof social media isticmaala ama qof social media xiiseeya, ka hadal social media wax ku tacalluqa, way fududahay inuu kula bilaabo wada hadal. dhanka kale, ciyaartoydu sida caadiga ah waa niman haraadsan oo had iyo jeer dadka ka boodaya hadalka oo raadinaya waxa xiga ee ugu fiican. sidaa daraaddeed, tani waa dabinka ugu fiican si aad ugu heli karto jawaabo ku caddaynaya inuu mashquul yahay ama inuu iska indhatiraayo. intaas ayuu ku eg yahay muuqaalkeena maantay. intaan muuqaal caynkan oo kale ku kulmi doono, nabadgelyo, farxad waarta dhammaantiin.